halkan waa iskuulka aqoon kaab ee ku yaala magaalada Buuhood. Iskuulkan ayaa waxaa gacanta ku haya ururka Handis oo ah dhalinyaro iska qaatan. Iskuulkan ayaa waxaa dhigtay dadka aan awoodin inay iska bixiyaan waxbarashada lacagta. Telefishinka caalamiga CBA ayaa wuxuu la dhaxraacay ardayda dhigata mikrofoonka iyagoo noo sheegay waxbarashada halkay ka marayeen. Dhanka kale waxaa warbixin naga siiyay maamulka iskuulka Maxamed Cabdixaaf iyo gudoomiyaha ururka Handis Sifur Cabdilaahi. Waa kuwan iyagoo ka hadlay. Cabdixaaf waxaan dhigtay iskuulka aqoon kaab loogu dhigaa bilaash annagu iskuulka Maleeno dadka hawd waxaan rabaa inaan marka iskuul nolo furo magacaygu waa Najma waxaan dhigtaa dugsiga aqoon kaab waan qori karnaa waxaan akhrin karaa qurba joogta waxaan ka codsanaynaa inaan noo soo dhisaan iskuul aygu waa hodan waxaan dhigtaa aqoon kaab waa bilaash loogu dhigaa waxaan ka codsanaa dadka Soomaaliyeed iskuul noo soo dhisto magacaygu waa Salmaan Cali Maxamed waxaan dhigtaa dugsiga aqoon kaab waa fasalka afraad dadka muslimiinta waxaan ka baranaa inay noo dhisaan iskuul noo dhisaan oo cusub aan qoraxda ka reysano Maayada Cali Cabdilaahi waxaan dhigtaa aqoon kaab waxaan fasalka labaad waxaan haddana waxaan qori karaa waxaan akhrin karaa macallimiin waxaan noo dhigtaa macallimiin dhalinyaro halkani waa dugsiga hoose ee aqoon kaab waxaa la aasaasay 2018 ilaa maanta oo ah waa u furan yahay iskuulkan waxaa aasaasay dhalinyaro ku bahowday ururka Handis oo runtii gelinka na wax barta gelin laga yaabo inay shaqeeyaan oo inta duhurkii ay isugu dayay bulshadooda iyo deegaankooda wixii ay u tari lahaayeen ay u qaban lahaayeen inay u qabtaan runtii iyagaana macallimiin ka ah oo bulshada la wadaaga wixii ay marka ay awoodaan ee aqoon ay barteen in bulshada deegaanka laga xaqabtiro akhriska iyo qoraalka oo hadafka koowaad uu ahaa in bulshada deegaanka aan markaas awoodin waxbarashada in laga kaabo qorista iyo akhriska runtii ardada ama soo xaadirtay ama la diiwaan geliyay aad bay u badan yihiin run ahaantii macallimiinta loo dhigaana iyaguna isma kafayn karayaan run ahaantii oo dadka badankoodu way yar yihiin ama kooban yihiin inta si volunteer ah doonayeen inay bulshadooda deegaankooda wax u baraan tirada hadda ardada dhigatay waa 340 arday weeye sidoo kale hore waxa uga qalin rogtay ama ka qalin rogtay iskuulka laba dafcadood hadeerna waxa iyaduna si gabagaba oo semesterkii u dambeeyay u fariisan doona hadii Allah idmo imtixaankan dafcadii saddexaad oo ka qalin jebin doonta dugsiga runtii dadka isugu jira ama dhigtay waxay isugu jiraan dad waaweyn iyo dad daa'ira bay isugu jiraan oo markaas cid waxbarashadii ama cid ka bixisa waayay ay isugu jiraan iskuulku runtii macallimiinta wax ku dhigay ama wax ka dhigay ma helaan wax mushahara ama gunaa meel laba runtii waa ama cid ku kaabtaa ma jirto waa dad isxilqaamay oo doonay deegaankooda iyo bulshadooda inay caawiyaan oo kaalmeeyaan runtii waxyaalaha muhiimka ama baahiyaha waaweyn aan qabno waxa kamid ah in ardada dhigatay ama bulshada dhigatay inaysan awoodin agabka waxbarashada sida qalmaanta iyo buugaagta iyo dariiska ku dhiganayaan oo aan u baahnaan lahayn laga kaabo maadaama aanu dhankii waxbarashada anagu aanu ka kaabo runtii sidoo kale baahiyaha kale ee iskuulku qabo waxa kamid ah inaanan haysanin goob iskuulku leeyahay oo ardaydu wax loogu baro waxa jirtay inaan iskuulka Hawd Secondary maamulaha ku yahay Sheekh Muxtaar aan wax ku dhigno oo aan duhurkii ay nasiiyeen in bulshada deegaanka ugu adeegno runtii aad baahi weyn baan u qabnaa in uu helo ama ardada ay helaan iskuul ama goob waxbarasho ah oo ardada si free ah loogu dhigo jecel khayrka ay ka soo qayb qaato dhismaha iyo tabarucaadka dugsiga waxyaabaha hadda basic needska ama baahiyaha ugu waaweyn oo ay ka mid tahay in ciyaalku ay haysan waxa la yiraahdo buugaagtii wax ku dhigan lahaayeen qalimaantii tamaashiir waxyaabahaas gaar waxa ugu mahadcelinayaa saxafiyada Najmo iyo TV-ga codka bariga Afrika dhamaantii aad baa mahadsantihiin Najmo Maxamuud Salaad telefishinka caalamiga CBA magaalada Buuhood.